kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maxaa ka jira in Imaaraadka ay ninkan wadato Xasan Sheekhna lagu cadaadinayo dawlad jadiid oo ku kala qaybsamay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilownay waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loo magacaabayo maxaase ka jira in dawladda shayaarintan ay saameyn ku leeyihiin saacadihii ugu dambeeyay waxaa si xoogan baraha bulshadu qabsaday shakhsiga loo wado ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyadoo markana ay bannaan ku soo baxayaan xogay macluumaad sheegaya in dawladda ay saameyn ku leeyihiin magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya taasoo dalba si weyn loo dareemayo ilwareedii lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay inay soo dhamaatay wadatashyadii ugu dambeeyay ee magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxay xogtu sheegaysaa in Dr. Axmed Maxamed oo loo yaqaan Sadiq Inow ay u badan tahay in loo magacaabi doono xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya guux weyn oo ku aadan xilkaas in isaga laga dhigi doono ayaana villa Soomaaliya laga dareemayaa caawa Dr. Sadiq Inow ayaa hore u soo noqday wasiirka caafimaadka Puntland xukuumadii Cabdulle Cali Gaas madaxweynaha ka ahaa isagoo mar soo noqday musharax u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga sugayo xulashada xilkaas iyo shakhsiga uu dooran lahaa haddana Inow ayaa xogta ay tilmaamaysaa in isagu yahay shakhsiga ugu cadcad ee loo magacaabi karo xilka ra'iisul wasaarnimo ee Soomaaliya sidoo kale xogtu waxa ay tilmaamaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu xitaa soo gunaanaday la tashadii ugu dambeeyay ee ugu jiro magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaana hadda si weyn loolankii u dhaxeeyay Puntland iyo Jubbaland u weecday dhanka iyo Puntland iyadoo ninkan la soo magacaabayana uu dhashay beesha Majarteen Cumar Maxamuud xogtu waxa ay tilmaamaysaa in dawlado waaweyn ay saameyn ku leeyihiin magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaana warar la helay ay tilmaamayaan in dawladda Imaaraadka Carabta ay si weyn gadaal ugu riixayso magacaabista shakhsigan maadaama ay u aragto nin fulin kara danaha Soomaaliya ay ka leedahay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya ayaa 20 cisho gudahood 3 jeer qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda taasi oo ka dhigan in Imaaraadka ay galaangal weyn ku leedahay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa villa Soomaaliya waxa uu ku qaabilay maanta danjiraha dawladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Ambassador Maxamed Axmed Uthman Al-Ahmadi kulanka ayaa waxaa labada dhinac ay ugu wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii dawladda Imaaraadka ku bilaabi lahayd taageerada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale xogta ayaa muujinaysa in si weyn looga dooday magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub iyo shakhsiga loo wado xilkaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa dawladda Imaaraadka Carabta xiriir weyn u kala dhaxeeya wuxuuna tan meesho ka saarayaa saameyntii qadar ee maamulkiisa ka horeeyay ee nabadii nolol kulankan ayaa ahaa kii saddexaad ee muddo ka yar 3 toddobaad uu safiirka Imaaraadka la yeesho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay 15 bishii May ee 2022 Imaaraadka ayaa 5 sano ee la soo dhaafay aan wax xiriir la lahayn dawladda Soomaaliya kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay dawladdii hore ee Maxamed Abdullaahi Farmaajo balse xiriirkii xumaaday uu soo celiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble qaabilaadda kulamada Xasan Sheekh Maxamuud ee safiirka Imaaraadka ayaa loo arkaa inay tahay dawladda kaliya ee saameynta ku leh marka la fiiriyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa qaba in arrintan ay ka dhigan tahay in Imaaraadka mar kale ay dib u soo celiyeen saameyntoodii Soomaaliya 5 sano ka hor iyo in ay saameyn ku dhex yeelanayaan xukuumadda soo aadan oo ay rabaan inay ka fuliyaan danahooda gaarka ee Soomaaliya ay ka leeyihiin xukuumadda soo aadan ayaa la filayaa inay ka soo muuqdaan xubno badan maamulka dawlad jadiid taas oo ka iman doonta in maamulkii hore nabadii nolol gabi ahaan laga suulinayo Soomaaliya hase yeeshee ninka loo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Sadiq Inow ayaa si toos ah xiriir u leh dawladda Imaaraadka Carabta waxaan la sheegay in ganacsiyo xoogan uu ku leeyahay magaalada Abu Dhabi ee waddanka Imaaraadka xogta ayaa sidoo kale muujinaysa in Imaaraadka ay siciidani kala dhicisay inuu ka tanaasulo xilka uu raadinayo ra'iisul wasaarnimo isla markaana uu tanaasulo ninkan Inow
oo iyagu ay gadaal ka riixayaan. xaaladan ayaa waxay ka dhigaysaa in xasan sheekh maxamuud uu ka gudbayo xeyndaabkii laga filayey iyo iskuwadkiisii uu olaha doorashada Soomaaliya ku soo galay in imaaraadka mar kale ay soo celiyaan faragelintoodii arrimaha siyaasadda ee gudaha Soomaaliya. waxay mar kale ka dhigan tahay in ay isku milmi doonaan Dooxa iyo Abu Dhabi iyo Muqdisho, isla markaana xiriirka Muqdisho iyo Abu Dhabi mar kale uu soo laabtana ay halis weyn ku tahay qarannimada iyo jiritaanka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya. magacaabista ra'iisul wasaaraha cusubna si aad ah ayaa looga hadlayaa guud ahaan baraha xiriirka bulshada ee Soomaalida ay ku wada xiriirto. dhinaca kalena kooxda Damuljadiid ayaa si weyn u kala qaybsantay shakhsiga loo wado xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. waxaa banaanka u soo baxaysa xogeeye macluumaad sheegaya in si weyn ay isugu khilaafeen Damuljadiid shakhsiga loo wado ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. waxaa la sheegay in qaarkood ay dalbadeen in meesha laga saaro gabi ahaan ninkan Eenow oo dowladda Imaaraadka Carabta ay wadato, halka Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha ugu dhow ee ururdiimeedkiisana ay si weyn u taageersan yihiin in Eenow loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan Soomaaliya. inkastoo ay soo dhamaatay saadaashii iyo hadalayntii la filayay ee ku aadanayd in laba shakhsi ay uga cadcadyihiin xilka ra'iisul wasaarenimo, haddana waxay u muuqataa in uu isgadiyey Xasan Sheekh Maxamuud. ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa isha lagu wada hayaa shakhsiga uu noqon doono, taasi oo siyaasiyiin badan ay wadaraadinayaan in xilkan ay helaan. guuxa jira ee laga dareemayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegayaa in laba shakhsi oo ka tirsan xisbiga UPD badan tahay midkood in loo magacaabo, inkastoo hadda shakhsiga cadcad uu banaanka u soo baxay. Maxamed Keenan oo ahaa madaxii shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Khayre ayaa laga yaabaa in xilkan wasiir koowaad ee Soomaaliya loo magacaabo, inkastoo ay hadda hoos sii dhacayso wararkii rajada ninkaas lagu magacaabi lahaa. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu kala shaandhayn ku sameeyo liiska siyaasiyiinta soo sharaxay xilka ra'iisul wasaarenimada ee Soomaaliya. waxaa xitaa liiskan soo galay ganacsade Maxamed Qorxi oo ka soo jeeda Jubbaland kuna dhashay degmada Afmadow ayaa laga yaabaa in xilkan uu helo, balse Saadiq Eenow iyo sidoo kale Maxamed Keenan ayaa labada shakhsi ee sida weyn loogu sadaalinayo xilka ra'iisul wasaarenimo ee Soomaaliya oo hadda si weyn ay isugu hayaan siyaasiyiinta u dhashay beesha Daarood oo iyagu shakhsi ahaan ama awood qaybsi ahaan xilkan iska leh, sida xogta iyo wararka soo baxaya intaba ay tilmaamayaan. wararkii ugu dambeeyana waxa ay tilmaamayaan in Damuljadiid ay si weyn ugu kala qaybsameen loolanka iyo awoodda xilka ra'iisul wasaarenimada loogu jiro. garabka Siciidani uu hogaaminayo iyo xubno kale ayaa la sheegay in si weyn uga caroodeen in iyaga laga boodo oo aan lagala tashan magacaabista shakhsiga cusub, halka Farax Cabduqaadir Mahad Salaad iyo xubno kalena Xasan Sheekh ay ku cadinayaan doonista Imaaraadka iyo in la magacaabo shakhsigan Saadiq Eenow, sida wararkan helnay ay tilmaamayaan. ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya muddada uu haysto Xasan Sheekh Maxamuud ee magacaabistiisa waxaa ka harsan wax ka yar 9 cisho, waana uu ku qasbanaan doonaa Xasan Sheekh Maxamuud in saacadda ugu dambeeya ee calaamsalkiisa uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya 4 sano ee soo aadan. guud ahaan saaxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.